aqalka looga arrimiyo dalka ee madaxtooyada xilli dambe waxa ku soo dhamaaday shir gaar oo u dhaxeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxda maamulada Hirshabeelle Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed shirka ayaa diiradda lagu saaray qodobo waaweyn oo masiirka dalka taabanaya sida doorashooyinka dalka ka dhici doona qaabkay noqon doonaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee la filayo inay ka dhacaan magaalada Muqdisho khilaaf la sheegay inuu ka dhex jiro xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay qayb ka yihiin madaxdan soo carabaabay shirka waxaa la sheegay in doodo waaweyn ay hareeyeen tusaale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu tilmaamay inuusan hadda ku qanacsaneen qaabka ay u wadaan hogaanka xisbiga isagoo sheegay in maamulka Galmudug la geeyay shakhsiyaad la sheegay in loo soo magacaabay isagu uusan waxba ka ogeyn madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay inuu degdeg u saxo khaladaadka jira oo gacmaha laga qabto shakhsiyaadka doonaya inay ku takriifal awoodad u adeegsadaan xubnaha xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka qaatay ayaa wuxuu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay wada shaqayn qurux badan oo dhexmarta filla Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay inuu madaxda maamul goboleedyada uu madax banaaneeyay arrimaha doorashooyinkooda oo uusan ku soo faragelin doonin isagana ay ku taageeraan muddo kororsi uu doonayo inuu u hanqal taago 2026 marka muddo xileedkiisu uu dhamaado sidoo kale qodobada waaweyn ee shirka lagu jeexjeexay waxa ka mid ahaa doorashooyinka maamul goboleedyada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo jeediyay in si degdeg ah madaxda maamul goboleedyada ay doorashooyin u aadaan laakiin Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu leeyahay madaxda maamul goboleedyada xarumahooda waa in laga qabto xubnaha doorashada golayaasha deegaanka taasoo dood badan ay hareysay shirku waxa uu soo dhamaaday iyadoo oo la is afgartay laakiin qodobo dhowr la isku mariil waayay iyadoo oo markana la ballamay xubnaha mucaaradka ayaa la filayaa in 10 bishan magaalo xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ay ku yeeshaan shir degdeg ah oo ay uga hadlayaan arrimaha doorashooyinka wax ka bedelka lagu sameeyo dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka iyo qodobo kale kuwaas oo la sheegay in filla Soomaaliya ay si weyn u dhibsanayso shirka ka dhici doona magaalo xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose guud ahaan daawadayaal wixii ku soo kordha shirkii xalay filla Soomaaliya shirka la filayo inuu ka furmo Nairobi iyo Kismaayo waxaad kaga bogan doontaan wararkeena dambe ee Himila TV internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu uu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu uu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah